wanaagsan dadkana dhageysanaya ku soo dhawaada warka duhur idaacadda Kismaayo codka Jubbaland qodobada warka duhur kuwada ugu waaweyn waxa ka mid ah Jubbaland oo ka tacsiideysay geeridii ku timid nabadoon Cali Xuseen Nuur oo ku geeriyooday gudaha Kismaayo Jubbaland oo bando habeenkii ah ku soo rogtay magaalada Kismaayo maxkamadda sare ee dawlad goboleedka Jubbaland oo dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo ugu baaqday inay raacaan talooyinka caafimaad si loo yareeyo khatarta koronaha tendada afisyooni ee magaalada Muqdisho waxa maalinkii labaad shir uga socda dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ciidamo ka howlgalo badda Soomaaliya oo laga helay COVID-19 iyo dawlad goboleedka Galmudug oo ka hadashay deegaano ay ciidamada xooga kala wareegeen kooxda Al-Shabaab akhbaraadka dibadda kuwada ugu waaweyn waxa ka mid ah ciidamada Eritrea oo bilaabay inay isaga baxaan gobolka Tigreega وكما warwageedii maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba radio Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku saleysan soo noqod wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal waa taariikhduna waxay ku beegan tahay 4 Abriil bisha sanadka 2021 qodobadaasi waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo ugu waaweynaa haatan waxaad ku soo dhawaataan iyaga intaasi ka faahfaahsan haddii aan ku hormaro qodobka ugu horeeya ee warka duhur dawlad goboleedka Jubbaland ayaa ka tacsiideysay geerida ku timid nabadoon Cali Xuseen Nuur oo ku geeriyooday magaalada Kismaayo Ismaaciil Cali qodobkan hayno faahfaahiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam waxa uu qoyskii qaraabadii iyo shacabkii reer Jubbaland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeynaya geeridii naxdinta lahayd ay ku timid Allah u naxariistay nabadoon Cali Xuseen Nuur Cali Dheere oo ku geeriyooday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose madaxweynaha ayaa sheegay nabadoonku uu ahaa shakhsi cibaado badan oo muddo ka soo shaqeeyay nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada reer Jubbaland waxa uu madaxweynaha ka codsaday dadkii ay wada shaqeeyeen nabadoonka iyo asxaabtiisa in ay iska cafiyaan nabadoonka oo ku geeriyooday magaalada Kismaayo dhinaca kale Jubbaland ayaa bandow habeenkii ah waxa ay ku soo rogtay magaalada Kismaayo gaar ahaan goobaha ay dadku isugu yimaadaan Raaxo Maxamed qodobkan hayno faahfaahiso goobaha ganacsiga magaalada Kismaayo iyo goobaha lagu caweeyay habeen ayaa xalay loogu soo rogay bandow ka bilaabanaya 2 saac oo fiidnimo ciidamada booliska Jubbaland oo watay baabuurta booliska ay ku xiran tahay aalada samaysay codadka baabuur gargaarka degdega ah ayaa gabi ahaanba xidhay suuqyada kala duwan ee magaalada Kismaayo kuwaasi oo habeenkii lagu gaari jiray xilli dambe taliyaha qaybta booliska Jubbada Hoose ayaa ka warbixiyay bandowgii xalay ka dhaqan galay magaalada Kismaayo ay sida arkayseen bacaaw waxa dhaqan galay bandowgii dawlad goboleedka Jubbaland ay ku soo rogtay guud ahaan dawlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo oo farabaan ku haya caabuqa coronavirus bandowga waxa loogu danaynayaa bulshada reer Kismaayo ama dadka Jubbaland inay kaga badbaadaan caabuqa coronavirus oo farabaan ku haya sida daraadeed waxaan u sheegaynaa bulshada reer Kismaayo ama dadka reer Jubbaland inay u hoggaansamaan amarka ay dawladoodu bixisay iyo ciidamada amniga hawsha ay qabanayaan inay la shaqeeyaan una hoggaansamaan waadna arkaysay bandowgii dawladda Jubbaland ay go'aamisay inay ciidanka boolisku fuliyeen caawa si fiican bayna hawsha u qabsoontay waana la bandowgaray magaaladii wax dhibana ma jiro maasha Allah dadku waa u hoggaansameen amarka inta badan waxaan rajaynayaa in loo sii hoggaansamo amarka isaga sida darteed waxaan bulshada Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ku boorinayaa si ay uga badbaadaan halista caabuqa koronaha inay u hoggaansamaan amarka ay dawladoodu bixisay oo iyaga loogu danaynayo wixii irsaaqada Ilaahay ku qoray maalinta hore hadaad shaqaysato ma waayaysid halka saac fiidnimo meeshii lagu gaadho inaad gurigaaga tagtid baabuurkaaga dhigatid kii aan baabuur wadanin oo aad gurigaaga si nabad ugu xarootid wixii badaaca ku taalana aad xareysatid intaasay dawladdu ku faraysaa intaas caafimaadkaaga la rabaa in lagu daryeelo dhimashada magaaladu aad bay u badan tahay caabuq ku hayo runtii hadda aan la koobi karin bay maraysaa sida darteed waxaa la rabaa in loo hoggaansamo amaawiirta ay dawladdu bixinayso iyo amaawiirta wasaaradda caafimaadka ay farayso dadka waana in la xidhaa face mask goobaha la isugu imanayana waa in lagu kala fogaado hoos la iska soo gelin
aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inay bulshadaydu qaadan doonto amarka dawladda Jubbaland waa mahadsan madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa maalintii Jimcaha gelinkii dambe xafiiskiisa ka soo saaray wareegto wax looga qabanayo caabuqa coronavirus oo si weyn ugu faafay gudaha magaalada Kismaayo iyadoona maalmihii aan soo dhaafnay ay si weyn ugu korodhay dadka u dhimanaya xanuunka wareegto uu soo saaray madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale waxa uu ku xusay in goobaha waxbarashada ee Jubbaland la xiray muddo isbuuc ah taasi oo iyadana dhaqan gashay shalay hay'adaha dawladda shirkadaha ganacsiga iyo waliba hay'adaha dawliga ah ayaa lagu amray in ay dhimaan shaqaalahooda tagaya xafiisyada ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo isla wararka coronavirus ay ku guda jirnaa dhanka kale maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dadweynaha ku nool gudaha magaalada Kismaayo ugu baaqday inay raacaan talooyinka caafimaad si loo yareeyo khatarta coronaha Maxamuud Saciid Axmed qodobkan haynoo sii dheereeyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland Cabdishakuur Sheekh Maxamed Rashiid oo raadiyo Kismaayo waraysi gaar ah siiyay ayaa ugu baaqay shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay ka digtoonaadaan caabuqa safmarka ah ee COVID-19 isagoona ku booriyay shacabka in ay raacaan talaabooyinka caafimaad ee looga hortagayo cudurka coronavirus ayna xidhaan marada afxidhka ah si uusan u faafin xanuunka gudoomiyaha ayaa sidoo kale ka hadlay waxa ay diinta islaamka ay ka qabto taxadarka iyo in uu qofka ka fikiro sida uu ilaalin lahaa badqabka naftiisa waxa kale oo culimada magaalada Kismaayo ugu baaqay in dadka lagu wacyigeliyo inay xirtaan marada afxidhka waxaan rabnaa marka cudurka isaga ku faafay adduunka dhibka weyn geysanaya hadda inoo muuqatay intaasoo ruux intii la geeyay muxuu ahaa qabriga qubuurta la geeyay maalin kastaba intii la geeyo muxuu ahaa la aasila yahay markii dambeeta markaan awoodeeni iyo tabarteeni ay ka gaabatay qubuurta la qoraya badnaanteeda cagaf loo qaatay inaan arrintaa iyadaa si dhaba aanu uga hadalno ummadeennana aan ka wacyigelino yani sidoo arrintani ay tahay walaalayaal horta cudurkani waa cudur adduunka ku faafay ha ku faafee ila al'aana dawo loo hayaa oo la leeyahay cudurkaasi dawadaasu leeyahay ma jiraan oon ahayn wax hortag la yidhaahdo marka u horeysa inaad iska ilaaliso oo aad ka cararto asbaabtii uu kugu asiibi lahaa oo dhan aad kaga cararto in badanna innaga hadda wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo iskaashanayay in badan bay ka hadleen arrintan dhaqangelinteeda oo ka hortaguna wuxuu yahay in la xidho afxidhka la xidho social distancing la ilaaliyo oo la kala fogaado dadku faraha dhaqdaan oo la isnadiifiyo yani arrimaha noocaasi kaliya waxaa la leeyahay war colka waraf ma lagu dayay oo arrintan armi un sidaas wax ku qaban kartaa baa la isleeyahay maadaama un dawo loo haynin marka walaalayaal waxaan rabnaa bal inaan taataabano noqdooyinka qaarkood midda koobaad cudurkani iyo cudurro lamid oo xunxuni way jiri jireen ama cudurro lamid ah waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii daacuunka la yidhaahdo kaleeto daacuunkaasi waqtigii nabigu dhaca calayhi salaatu wasalaam nabiga wuxuu yidhi xadiid nabiga ka sugnaaday yaa waxaa la leeyahay haddii uu arlo ku dhaco arladaa ha gelina daacuun hadduu ku dhaco ha gelina hadduu idinkoo ku dhex jira uu ku dhacana ha ka bixina macnaha taasi waxaa weeye waxa hadda karantiilka loo yaqaaniya dhabta waxaan rabaa marka waxaa jirta axkaamta sharciga axkaam fangasha marka la fulinhayo wada fulinteedu muxuu ahaa hal mar baa la wada fuliyaa lama kala fuliyo isku mar bay ku fiican tahay waa waxa la yidhaahdo xidarka ama digtoonida iyo ka digtoonaanta iyo ilaahay oo la tala saarto nusuus waxaa jirta ina amraysa wakhuduu xidrakum walaa tulquu biaydiikum ila tahluka nusuus ina amraysaa jirta inaan xidar qaadano oo aan digtoonaano oo wixii cudura iyo wixii nafteena dhibahaya iyo wixii dhib inoo geysanhayaba inaan ka digtoonaano ina amrahaya waxaa jirta yani adilo kaleeto oo ina faraysa inaan ilaahay tala saarano hadalkani ka soo yeeray gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland ayaa ku soo beegmaya iyadoo dowlad goboleedka Jubbaland ay bandow ku soo rogtay magaalada Kismaayo kaasi oo xalay ka dhaqan galay magaalada
maxamuud siciid axmed idaacadda raadiyo kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland magaalada kismaayo. markana muqdisho teendhada afisiyoni ee magaalada muqdisho waxaa maalinkii labaad ku shirsan madaxda dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaana maanta si weyn looga hadlayaa ajandaha shirka weyn ee la filayo in muqdisho uu ka qabsoomo. Cabditax Cali Maxamed hayno sii dheeray. waxaa maalinkii labaad ka furmay xarunta teendhada afisiyoni ee magaalada muqdisho shirka madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. shirka oo shalay bilowday ayaa waxaa maanta ay madaxda gudagalayaan ka doodista ajandaha iyo cidda kasoo qaybgalaysa shirweynaha doorashada ee dhawaan ka furmaya magaalada muqdisho. wararka laga helayo shirka ayaa waxay sheegayaan in maanta ay u dhowdahay in shirka uu isfahan ku dhammaado ama lagu kala tago maadaama madaxda dowlad goboleedyada ay waqti badan joogaan magaalada muqdisho. wararka ayaa waxay intaasi kusii darayaan in madaxda federaalku iyo kuwa maamul goboleedyadu la aragtida markaa ah in ay markaa ku adkaysanayaan in geedi socodka doorashada lagu sareeyo heshiiskii 17 Sebtembar ee xamar iyo is-afgaradyadii Baydhabo, halka madaxda Puntland iyo Jubbaland ay ku doodayaan in wax la iska weydiiyo dhacdadii 19 Febraayo ee xamar iyo in door la siiyo saamileyda siyaasadeed ee kale. wakiilada beesha caalamka oo lahaa qabanqaabada shirka ayaa kor kala socda arrinta iyaga oo madaxda ku cadaadinaya inay gaaraan heshiis uu ku qabsoomo shirweynaha wadatashiga doorashada. dhinaca kale ciidamo ka howlgala badda Soomaaliya ayaa la sheegay in laga helay caabuqa COVID-19. Axmed Cabdi Maxamed qodobkan haynoo sii dheereeyo. wasaaradda gaashaandhigga dalka Japan ayaa shaacisay in laba ka mid ah askartooda oo ka howlgala biyaha Soomaaliya ee u jooga la dagaalanka burcadbadeeda Soomaalida laga helay cudurka safmareenka ah ee coronavirus. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Japan ayaa waxaa lagu sheegay in askartaas oo tiro ahaan gaaraysa 4 askari ay xaruntooda dalka Djibouti la geeyay isla markaana ay halkaa ku geli doonaan karantiil. sidoo kalena baaritaan lagu samayn doono askarta kale ee ay la macaamileen. sidoo kale wasaaraddu waxa ay sheegtay in 4 askari oo xaaladooda caafimaad haatan lagula tacaalayo xarun caafimaad oo ku taala xire ay ku leeyihiin dalka Djibouti isla markaana caafimaadkoodu uu yahay mid wanaagsan. howlgalka ay ciidamadu ka wadaan biyaha Soomaaliya ma carqaladayn doonto kiisaska cudurka coronavirus ee laga soo wariyay ee waan sii wadaynaa waxaana rajaynaynaa in uusan ku faafin askarta kale ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Japan. toddobaadkii hore ayay ahayd markii laba ka mid ah askarta Japan ee ka howlgala biyaha Soomaaliya laga helay cudurka coronavirus waxaana haatan ay gaarayaan ilaa 6 askari iyadoo laga cabsi qabo in askar kale oo ka tirsan dalkaasi Japan uu soo rito caabuqa coronaha. dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka hadashay deegaano ay ciidamada xoogga dalka kala wareegeen. Amaal Cawil Maxamuud ayaa qodobkan inoo faahfaahinayso. kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa ka hadlay dagaal deegaano ku yaala duleedka magaalada Dhuusamareeb ay ciidamada dawladda kula galeen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Cali Daahir Ciid madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa hambalyo u diray ciidamada qalabka sida guul uu sheegay inay ka soo hoyeen dagaalkii ay deegaanada Sinadhaqo iyo Labadulle ciidamada kula galeen Al-Shabaab. waxaan si gaar ah ugu hambalyeeynaa guutada 15aad ee qaybta 21aad ee ciidamada xoogga Soomaaliya iyo ciidanka NISA oo ayaga oo degan Baxdweyn ka saaray Al-Shabaab. waxaana ka tacsiyadeynayaa askartii ku shahiiday inta ay howlgallada xaq u dirirka ah ay socdeen ayuu yiri Cali Daahir Ciid. ciidamada dawladda gaar ahaan guutada 15aad ee qaybta 21aad ayaa howlgal saacado badan qaatay waxa ay ka sameeyeen deegaano hoostaga magaalada Dhuusamareeb iyaga oo la wareegay deegaano dhowr ah.
halkaad warkaasi kala socotaanna waa idaacadda radio kismaayo codka jubbaland goordhow waxaynu idiin soo gudbin doonaa qodobka dibadda balse inta aan u gudagelin faahfaahintiisa kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo kulamada xiisaha leh ee maanta la filayo in ay lacaan haddaba cabdifataax iyo haynoo soo koobo aad baad mahadsantahay cabdimajiid cabbaas aadan fantastic kusoo dhawaada saaxiibayaal xubinta ciyaaraha qaybta ka warkayga duurnimo aan ku bilaabay xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda Arsenal Tierney ayaa ku qasbanaaday inuu isaga baxo kulankii ay Arsenal guuldarrada 3 gool waxba ay kala kulantay nadiga Liverpool kadib markii dhaawac jiribka ay soo gaaray xiddiga kooxda Mikel Arteta ayayna haatanba dhaawac uga maqan yihiin xiddigaha Bukayo Saka iyo xiddiga lagu magacaabo Smith Rowe David Luiz iyo Granit Xhaka kuwaasi oo dhamaantood seegay kulankii Liverpool. Tierney ayaa ku bilowday shaxda Arsenal Sabtidii laakiin waxay isku dhaceen xiddiga lagu magacaabo James Milner taas oo keentay inuu xiddigu markaa ka dhaawacmo jilibka ka hor dhamaadka qaybtii hore ee ciyaarta iyadoo lagu bedelay xiddiga lagu magacaabo Cedric. ciyaarta kadib tababar Mikel Arteta ayaa sheegay inuu Tierney dareemay xanuun dhanka jilibka ahi sidaas darteedna uu muddo ka maqnaan doono garoomada inkastoo aanu shaacin waqtiga uu maqnaan doono ee rasmiga ah. sidaas darteed xiddiga Tierney ayaa haatan la filaya inuu seego kulanka Khamiista ee Arsenal la ciyaari doonto naadiga lagu magacaabo Slavia tartanka Europa League. ugu dambeyntiina indhidhayihii hore ee kooxda Barcelona ninka lagu magacaabo Andre Carey ayaa ku qanacsan in uu Lionel Messi sii joogi doono kooxda Barcelona welibana saxiixi doono heshiis cusub oo uu kusii joogi doono garoonka Camp Nou. heshiiska xiddiga 33 sano jirka ahi ee naadiga Barcelona ayaa dhici doona dhamaadka xilli ciyaareedkan waxaana jirta suurtagalnimo ah in uu sii joogi doono kooxda Barcelona sida uu sheegay Andre Carey. waxa aan hubaa in uu Leo sii joogi doono Barcelona ayuu yiri Andre oo u sheegay warbaahinta. waxa uu noqon doonaa mid faraxsan mar kale waxa ay Barcelona markaa noqon doontaa koox cusub waxaana uu mar kale noqon doonaa midka koobaad ee adduunka. Leo ayaa Barcelona iyo Argentina dabcan naadiga Barcelona u sheegay inuu iska tagi doono oo uu gudbiyaba warqadii ka tagitaanka naadiga laakiin wax waliba hadda mugda ayaa la gelinayaa oo wax laga yaabaa ayaa leeyahay in Leo uu sii joogo sabab la xiriira madaxweynaha cusub ee kooxda oo doonaya in Leo ku qanciyo heshiiska cusub iyo in naadiga uu sii joogo. xubintii ciyaaraha wanaagta Cabdimajiid iyo qabaha kala warka cabdifataax aad ayuu maasan yahay oo inoo soo koobayo xubinta ciyaaraha ee warka duhur markana haddii aynu firino faahfaahinta qodobka dibadda Ethiopia ayaa sheegtay in ciidamo ka soo jeeda dalka ay dariska yihiin Eritrea ay bilaabeen inay isaga baxaan gobolka Tigreega. ciidamada Eritrea ayaa markaasi ka garab dagaalamaya ciidamada Ethiopia xilligii ay howlgallada ka dhanka ah TPLF ka socdeen halkaasi. jimcihii dalalka markaa ku hormaray warshadaha ee G7 lagu magacaabo ayaa ku baaqay in ciidamada Eritrea isaga baxaan gobolka isla markaana waxay cambaarayeen dilka loo geystay dad rayid ah iyo waliba tacadiyo ka dhacay gobolka Tigreega. waxa ay sidoo kale markaa codsadeen in la furo marinka gargaarka bini'aadnimo ee lagu gaarsiinayo shacabka markaa tabaaleysan oo ku nool gobolka colaaduhu saameeyeen ee Tigreega.
qaramada midoobay waxa ay mar badan markaa walaac ka muujisay dhibaatada ka taagan gobolka oo adkeeyay howlaha gargaarka toddobaadkan laba xero oo ku yaala gobolka oo ay markaa ku nool yihiin 2,000 oo qof ayaa markaasi la burburiyay halka dhacna loo geystay shacabka guud ahaan warkii duhur aad kala socoteen akhyaaray xilligan waa naga intaa anigu cabdilmajiid cabaas aadan fantastic ayaa idin akhrinaya warka duhur tan iyo kulankayga dambe dhammaanteeda isku duwan waxaan idin leenahay nabadgelyo